Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tererey waa haweeney u dhalatay dalka Zimbabwe, waxayna horumar weyn ka gaartay dhanka waxbarashada. Oo waxay waxbarashada soo bilowday ayadoo hooyo ah oo 5 carruur ah haysato. Intay iskuulka tagtay ayay waxbarashadii ku soo gabagabaysay shahaadada PhD-da. Waxay dhalatay haweeneydani Zimbabweedda ah ee lagu magacaabo Tererey Tran sanadkii 1965. waxayna ku dhalatay tuulo yar oo ku taalla baadiyaha gobolka Karwi ee dalka Zimbabwe. Waxay ahayd yaraanteedii gabar aad u jecel waxbarashada, laakiin nasiib darro aabaheed ayaa u diiday inay iskuulka tagto oo wax barato. Mar ay weydiisay Tererey aabaheed sababta uu waxbarashada ugu reebay, walaalkeedana uu ugu ogolaaday, ayuu odayga ku jawaabay, kani waa wiil birito ayuu qoyska anfacayaa, laakiin adiga waxaad guursanaysaa nin, asagaas ayaadna anfacaysaa, oo annaga wax faa'iido ah nooma lihid. Waayo haddii aan maanta ku maalgelinno birito faa'iidadaada waxaa 100% iska leh ninkii ku guursaday ee aad xaaska u noqotay. Kelmadahan ka yimid dhanka aabaheed ayaa Tererey niyadda ka jibiyey, laakiin kolkii dambe waxay go'aansatay inaysan isdhiibin oy wax barato. Haddaba haddii loo diiday tegidda iskuulka, Tererey sidee wax ku baran kartaa? Waxay ahayd Tererey gabar aad u caqli badan isla markaana leh han sare. Sidaas daraaddeed waxay bilowday sidii ay wax ku baran lahayd. Waxay la saaxiibtay walaalkeed kaa oo nasiib u yeeshay inuu iskuulka tago waxna barto. Tererey ayaa waxay akhrisan jirtay buugaagta walaalkeed, wixii ay fahmi waysana asiga ayay weydiin jirtay. Marka uu iskuulka aadana waxay akhrin jirtay buugaagta kale oo ayada nafteeda ayaa wax isbari jirtay. Ma ahayn Tererey walaalkeed mid fahan ah sida walaashis oo kale. Ayada ayaa ka shaqayn jirtay su'aalaha loo soo diro walaalka. Aakhirkii waxaa arrintii dareemay macallinkii iskuulka. Wuxuuna ogaaday macallinka in qof aqoon leh uu guriga joogo, isla markaana su'aalaha adag ee loo soo diro wiilka ka soo shaqeeya. Laakiin macallinkii ayaa yaabay markii uu ogaaday qofka ka soo shaqeeyay su'aalaha adag inay tahay gabar yar oo loo diiday inay wax barato. Arrintan ayuu qaadan waayay macallinkii. Wuxuuna tagay guriga, gabartii ayuu wareystay, imtixaan yarna waa ka qaaday. Wuxuu arkay in halkan ay joogto gabar fahan ah oo waxbarashadan u jajaban, laakiin dhanka waalidkeed dhib ka haysto. Macallinkii ayaa la sheekaystay odaygii dhalay gabarta, wuxuuna ka dhaadhiciyey inuu gabarta u ogolaado inay wax barato, ay ka faa'iidaysato fahamkeeda isla markaana horumar samayso. Aabbihii ayaa asigoo arrintaani ka cagajiidaya, laakiin macallinka soo jeedintiisa aan diidi karin aqbalay arrintii. Wuxuuna gabartii u ogolaaday inay tagto iskuulka waxna barato. Tererey oo aad u faraxsan ayaa subaxii dambe iskuulkii aaday. Waxayna ka yaabsatay ardaydii iyo macallimiintii, oo waxay la soo baxday kartideeda iyo burhaanteeda. Muddo sanad ah ayay Tererey iskuulka haysatay, laakiin nasiib darro aabaheed ayaa ballantii ka baxay. Wuxuuna gabartii ka saaray iskuulkii, wuxuuna u guuriyey ayadoo weli aan qaan gaarin mid ka mid ah raggii degganaa tuulada. Wuxuuna guurkeeda ku qaatay 1 sac oo keliya. Tererey ayaa gashay guur aysan raalli ka ahayn, isla markaana aysan xilligiisii gaarin, laakiin waxay ku qasbanaatay in ay reerkeeda cusub maamulato. Tererey weli isma dhiibin oo waxay bilowday inay waxbarashada ku soo laabato. Laakiin ninkii guursaday iyo aabaheed ayay cadaadis daran kala kulantay. Heer waxay gaartay la garaaco, laguna dhaho daadi buugaagtan, mar dambena ha keenin gurigan wax qalin ah iyo buugaag. 10 sano kadib, Tererey oo 5 carruur ah haysato ayaa waxaa tuuladii soo booqday saxafiyad Maraykan ah, taas oo wareysi la yeelatay dumar badan oo tuulada ku noolaa. Dumarkii ayaa ka faallooday noloshooda caadiga ah iyo dhibaatada dhaqaale xume ee haysata. Laakiin Tererey way ka duwanaatay haweenkii ku noolaa tuulada ee la wareystay. Markii ay saxafiyaddii weydiisay Tererey su'aalo ku saabsan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda, Tererey ayaa ku jawaabtay, waxaan rajo weyn ka qabaa in aan iskuulka dhigto oo aan dugsi sare ka qalin jibiyo, kadibna aan aado Maraykanka, isla markaana aan ku biiro mid ka mid ah jaamacadaha Maraykanka, soona diyaariyo master iyo PhD, kadibna aan ku soo laabto dalkeeda Zimbabwe oon iskuulo badan ka furo, waxbarashada dalkeedana kor u qaado. Saxafiyaddii ayaa afka gacanta saaratay oo la yaabtay. Waxayna isweydiisay sidee ku dhici kartaa haweeney Afrikaan ah isla markaana ku nool tuulo aad u liidata, 5 carruur ahna haysata, inay sidaan u fakarto. Saxafiyaddii xitaa markii ay ka tegaysay Tererey kuma dhihin, waxaan kuugu dhiirigelinayaa inaad ka miro dhaliso
riyadaada ayadoo yaaban oo hadalka Tereerey ciyaar la yahay ayay halkii ka dhaqaaqday oo gaarigeeda kortay. dhowr bilood kadib wareysigaasi Tereerey waxay ku biirtay oo ardayad ka noqotay dugsi sare oo ku yaalay tuuladeeda meel u dhow. laakiin nasiib darro waxaa rabitaanka Tereerey ka soo horjeestay ninkii qabay iyo aabaheed. habeenkii inta ay quudiso carruurteeda iyo ninkeeda kadibna seexiso ayay faynuusta shidan jirtay oo wax akhrin bilaabi jirtay ilaa saqda dhexe ayay akhrintaasi wadi jirtay. 8 sano kadib Tereerey waxay ku guulaysatay oo gacanta ku dhigtay shahaado dugsi sare, waxayna muddo kooban kadib Mareykanka ka heshay deeq waxbarasho. Tereerey iyo qoyskeeda ayaa u guuray dalka Mareykanka, waxayna ardayad ka noqotay jaamacadda Oklahoma. halkan nolosha ma fududa, waxay Tereerey ku khasbanaatay inay shaqaysato si ay ciyaalkeeda u biilato. waxayna soo qabatay inta ay waxbarashada ku jirtay shaqooyin kala duwan. waxaa marmarka qaar qoyskeeda soo mari jirtay inay habeenkii gaajo ku jiftaan, laakiin waxaa arrin lala yaabo noqotay kadib markii uu caro la qarxay Tereerey ninkii qabay, waayo wuxuu aad ugu xumaaday guulaha isdabajoogga ah ee xaaskiisa ka gaarayso dhanka waxbarashada, asiguna yahay nin aan miisaan ku lahayn bulshada dhexdeeda. caradaas iyo masayrkaas oo ku keenay kolkii dambe inuu si xun u garaaco xaaskiisa si uu ugu yaraan ugu joojiyo kusii socodka waddada guusha. halkaani marka ay xaaladda marayso ayay Tereerey dib u xasuusatay safarkii adkaa ee ay u soo martay waxbarashadeeda, waxaana u soo baxay inay goordhow u bilaaban doonto gurashada mirihii guusha. ninkeedii ayaa doqon noqday oo wuxuu u bareeray inuu hor istaago guulaha isdabajoogga ah ee ay gaarayso xaaskiisa, wuxuuna la soo baxay dabeecad qallafsan iyo garaacid joogto ah. in muddo ah markii ay dul qaadanaysay, asiguna uu maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayo, isna mooda inuu joogo tuuladii yarayd ee ku taallay baadiyaha Zimbabwe, ayaa markii dambe arrintii waxay gaartay booliska magaalada. ninkii ayaa subaxii dambe laga soo kaxeeyey guriga oo jeebo lagu soo dhuftay, waxaana lagu tuuray saldhigga booliska. kadibna waxaa loo gudbiyey maxkamaddii, taa oo kolkii dambe u dirtay jeelka. isla sanadkaasi ninkeeda xabsiga loo taxaabay ayay Tereerey ka qalin jebisay jaamacadda, waxayna qaaday shahaado baaj ah oo dhanka beeraha ah. horey ayay u sii socotay oo waxay diyaarisay master iyo PhD. kadibna waxay ka shaqo bilowday hay-addii u fududaysay inay timaado Mareykanka isla markaana wax barato, taas oo lagu magacaabo hay-adda Hoover ee caalamiga ah. Tereerey ayaa kolkii dambe go'aansatay inay abuurato mu'asaso iyadu ay leedahay, taas oo lagu magacaabo hay-adda caalamiga ah ee Tereerey Tranti, hawsheeduna tahay ka shaqaynta horumarinta waxbarashada dalkeeda Zimbabwe. inta ay lacag tabarucaad ah ka soo aruuriso gudaha dalka Mareykanka ayay u soo dirtaa dalkeeda si waxbarashada dalka kor loogu qaado. haddaba Tereerey oo hawshaani ku jirta laakiin aan weli guul weyn ka gaarin ayaa sanadkii 2011 waxaa marti qaaday haweeneyda dunida aadka looga yaqaano ee wariyadda ah ee lagu magacaabo Oprah Winfrey, taas oo barnaamijkeeda aadka loo daawado ku marti qaaday Tereerey, isla markaan u aruurisay lacag tabarucaad ah oo gaaraysay $1.5 milyan. Dictoressa Tereerey ayaa ka mid noqotay shakhsiyaadkii lagu marti qaaday barnaamijkan ee aadkana ugu faa'iidaystay. wixii intaa ka dambeeyey Tereerey waxay ku soo baxday haweeney caan ka ah gudaha dalka Mareykanka. lacagtii ay ka heshay barnaamijkii Oprah iyo tii ay hore u haysatay ayay Tereerey ku howlgashay oo la aaday dalkeedii hooyo ee Zimbabwe, waxayna deegaankeedii ka furtay 11 iskuul oo casri ah oo qalabkooda iyo macallimiintii ardayda wax bari lahayd u dhammaystiran tahay. waxaa iskuulladii ku soo butaacay arday fuqara ah maadaama iskuulladii yihiin lacag la'aan, waxaana halkaana ka bilaabatay waxbarasho wanaagsan. waxaana ardaydii ka mid noqday kumanaan gabdhood oo riyadoodu tahay inay noqdaan sidii Tereerey oo kale. odayaashii hortaagnaa gabdhihii kolkaani way ka leexdeen waddadii, waayo waxay indhahooda ku arkeen guusha ay gaartay gabartii shal la cadaadinayay ee Tereerey. waxaa kaloo meesha ka baxay gabar wax baratay, waxay keli way anfacaysaa ninkeeda iyo qoyskeeda. hadda waxay indhahooda waaweyn ku arkeen in Tereerey ka soo gudubtay reerkeeda oo waxqabadkeeda soo gaaray aqal walba oo ku yaalla deegaanka. halkan ayay Tereerey ka sii waday wax u qabadka dadkeeda, ayadoo fulisay barnaamijyo badan oo wax taray bulshadii ku noolayd deegaankan. waxay waddanka keentay waxbarasho tayo leh oo ah tii ay ku soo aragtay dalka Mareykanka. hadda Tereerey waa aqoon-yahanad dunida laga yaqaano, isla markaan laga ixtiraamo
miisaan ku leh fagaarayaasha caalamiga ah. waa barofesoorad oo jaamacado badan kuna yaala dunida ka hormartay dhanka maadiga ah wax ka dhigta. sidoo kale waxay deegaankeeda ku leedahay 11 iskuul oo ay ka jirto waxbarasho tayo leh oo lacag la'aan ah. ayada ayaa iskuuladaasi maalgelisa. haddaba aaway qoftii ku noolayd tuulada ee loo diiday waxbarashadii yareed ee ka jirtay tuulada? haddii Tereerey isku qanci lahayd waxaad ku nooshahay tuulo Afrika ku taalla, waxbarashana guulka gaari maysid ee iska dhaaf. maanta wax ma baran lahaayeen kumanaanka ciyaal ee 11 iskuul ee Tereerey wax ka barta? jawaabtu waa maya. haddaba noloshu waa halgan, waxaana guul gaara qofka guuldarrada qaraarkeeda soo dhimiyey. dhammaan caqabadahan hor yaalla ma ahan kuwa naga hor istaagi kara in aan guul gaarno. aan ku soo gabagabeeyo oraahdii Tereerey waxay dhahday, qofnaba xaq uma laha inuu xadido wax aad noqonayso adigu birito. adiga ayaa mustaqbalkaada mas'uul ka ah. adiga keli ayaa mas'uul ka ah guushaada iyo fashilkaada.